Itoobiya oo xaalkeedu allow sahal yahay, dagaalkii oo sii adkaaday, magaalooyin waaweyn oo gubanaya, Tigray oo ku dhow caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa daawadayaal. Ciidamada TPLF oo dilay sargaal sare oo ka tirsanaa militariga Itoobiya, jabkii ugu cuslaa oo la gaarsiiyay Abiy iyo ciidamadiisa. Ku dhawaad 25 askari oo weerarka markaasi looga dilay saacadihii ugu dambeeyay waan idin soo gudbin doonaa daawadayaal. Qayla dhaanta Abiy oo sii kordhaysa. Sidoo kale waxaad daawan doontaan warbixinadii ugu dambeeyay ee dagaalka Itoobiya ayaynu idin soo gudbin doonaa daawadayaal. Qodobadaas iyo hadba wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan saaxiibayaal. haddii aad nagu cusub tahay oo markii kuugu horeysay aadna daawanayso, fadlan channelka subscribe inoo saar, sii share garay muuqaalka oo laag saar, sidoo kalena gambareelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelino. waad ku mahadsan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba. Aynu ku bilowno markan. Dagaal aan waxba la isula harin ayaa ka socda dalka Itoobiya, iyadoona ciidamada Itoobiya uu haatanba markaasi dhex marayo iyo sidoo kale jabhadda Tigray, mid ka mid ah dagaaladii ugu xoogganaa tan iyo markii uu dagaal ku bilowday November 2020. Muddo 5 bilood kadib, xaalka Itoobiya waa allow sahal oo barakac ayaa ka bilowday. Macluul iyo dhibaatooyin kale oo xooggan ayaa la soo warinayaa in ay dagaaladani sababeen. Jabhadda TPLF ee dagaalka kula jirta ciidamada federaalka ee Itoobiya ayaana muddadii 5 bilood ahayd waxay u muuqataa in ay aad markaasi diyaar garow xooggan u soo gashay rogaal celinta weerarka oo ay ku qaadaan ciidamada Itoobiya. waxaa la soo warinayaa tan iyo markii uu toddobaadkii hore dib u qarxay dagaalkan in jabhadda TPLF guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalkan, waxa ayna la wareegeen magaalooyin muhiim ah oo kaabiga ku haya caasimadda Addis Ababa. sidoo kale waxa ay dileen asgar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa ku qasbanaaday in uu kaalmo military soo weydiisto wadamo uu ka mid yahay dalka Algeria oo ah wadanka labaad ee militarigiisu ugu awood badan yahay qaaradda Afrika. Abiy ayaana haatan ka fikiraya tallaabada xigta ee uu qaadayo, maadaama ciidamada mucaaradku ay ku dhow yihiin caasimadda dalkii Algeria ee markaasi uu kaalmada soo weydiistana uusan weli wax jawaaba markaasi soo siinin. waxaa la soo warinayaa in madaxweynaha dalkaasi Algeria uusan taleefanka ka qabanin, isla markaana maalintii ay soo kulmeen kaliya ay ugu dambeysay warkiisa. dhinaca kale, sargaal sare oo dhinaca saadka u qaabilsanaa ciidanka Itoobiya ayaa la soo warinayaa in ay toogteen ciidamada TPLF isagoo jooga furinta hore ee dagaalka. sargaalkan oo magaciisa lagu soo koobay Gabre Tenese ayaa markaasi 15 sanadood ka mid ahaa militariga Itoobiya, waxa uuna u qaabilsanaa dhinaca saadka iyo kaydka hubka. waxa uu noqonayaa sargaalkii ugu weynaa ee markaasi dagaalka looga dilo tan iyo dib markaasi oo bilaabashada dagaalka. sidoo kale asgar badan ayaa la soo sheegayaa in ciidamada Tigray ay ku dileen dagaalka ka soconaya meel u dhow magaalada Addis Ababa. magaalada Addis Ababa ayay kaabiga ku hayaan oo magaalooyin markaasi u dhow sida warbixinadeeni horeba aad ku maqasheen 30 kilomitir magaalo u jirta ayay ku joogaan ciidamada TPLF, halkaas oo ay dagaalo xooggan ay ka wadaan. sidoo kale waxaa la soo warinayaa in qaybo ka mid ah madaafiicda ay ridayaan iyo duqeymaha ay halkaas ka geysanayaan ay gaarayaan qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. xaalka ayaa ku xun Abiy iyo kooxdiisa, waxaana markaasi la soo warinayaa in Abiy uu ka fikirayo inuu guud ahaanba dalka ka tago ama markaasi uu kaalmo military oo xooggan uu weydiisto dowladaha markaasi aadka isaga u taageera. sidoo kale waxaa la soo warinayaa Abiy in uu markaasi doonayo gebi ahaanba in dadka ku nool caasimadda Addis Ababa uu dhammaantood hubka wada gaarsiiyo, isla markaana uu dagaalka geliyo. laakiin arrintaasi ayaa waxaa la leeyahay suurtagal ma noqon karto, maadaama dadkaasi aanay doonayn in ay dagaal siyaasadeed markaasi ay galaan. qaarkood ayaana markaasi la soo warinayaa in ay ka biyo diidan yihiin in markaasi jabhadda TPLF lala dagaalamo. ciidamada Itoobiya ayayna ku wargelinayaan in ay dagaalka ka soo laabtaan, isla markaana ay nabadgelyada ka shaqeeyaan, maadaama iyagu ay yihiin dowladii lagana doonayo in ay nabadda dalka guud ahaan ay ka shaqeeyaan. shacabka ku nool magaalada markaasi Addis Ababa ayaana markaasi si weyn u dhaliilsan tallaabada markaasi Abiy Ahmed ee dagaalka markaasi uu kula jiro ciidamada TPLF. waxayna markaasi leeyihiin
abiy ka soo laabo dagaalka oo halkan imaad si aan u helno dhammaanteenba nabadgelyo shacabka aad ku qabatay cunaqabataynta ee ku sugan Tigreena ka qaad ayay ku amrayaan dadka shacabka ee ku nool magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Tigray waxaa markaasi saaran cunaqabatayn aad u xoogan oo markaasi Abiy Ahmed iyo xulafadiisu ay saareen, waxaana jira dad macluul iyo gaajo daran ay halkaasi ku hayso. sidoo kale goobihi caafimaadka ayaa xiran sida ay ku dhawaaqayaan ama ay sheegayaan hay'adaha caafimaadka adduunka ee WHO iyo sidoo kale hay'adda caruurta ee UNICEF. waxaana markaasi la soo warinayaa in halkaasi ay ka jirto macluul aad u daran oo ciidamada Itoobiya markaasi ay u geysteen kadib markii la saaray cunaqabatayn aad u xoogan. dad badan ayaa ka soo barakacay halkaasi, dad waxa ay la socdaan ciidamada TPLF. sidoo kale waxaa jira dad kale oo aad u fara badan oo ku dhuumaalaysanaya kaymaha markaasi halkaasi u dhow oo dhibaatooyin xooganna markaasi ay ku haystaan. abaar daran iyo sidoo kale colaado ayaa isugu darsooma dadkaasi, waxaana la soo warinayaa in qaarkood gaajo ay geedaha hoostooda ugu dhimanayaan. sidoo kalena buuraha markaasi halkaas ku yaala ee qaarkood dhibaatooyin xoogan hoostooda ay ku haystaan. waxaa la soo warinayaa markaasi in ciidamada TPLF ay isku dayayaan in ay dadkaasi gaarsiiyaan gargaaro degdeg ah, laakiin waxaa suurtageli la meeshii markaasi loo marsii lahaa. afhayeen u hadlay ciidanka dowladda Itoobiya ayaa sheegaya inay si adag markaasi isaga caabiyeen weerar isdaba joog ah oo maleeshiyaadka markaasi Tigray ee TPLF ay ku soo qaadeen deegaano kaabiga ku haya xuduudda ay wadaagaan ismaamulada Cafarta iyo sidoo kale Tigray. ila wareejo madax bannaan ayaa sheegaya in ciidamada federaaliga xabashida ay madaafiic markaasi ku garaaceen saldhigyo ay TPLF ku lahaayeen duleedka degmada Yaalow ee gobolka Cafarta. kadibna waxaa markaasi bilowday howlgallo iyo dagaallo foolka foolahay. mas-uuliyiin ka tirsan ismaamulka Cafarta ayaa laga soo xigtay in khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh uu ka dhashay madaafiic ay TPLF ku qaadeen degmada Yaalow la yiraahdo. dagaalada ugu culus waxa ay ka socdaan ismaamulka Amxaarada. goobjoogayaal ayaa waxa ay warbaahinta markaasi u sheegeen in maleeshiyaadka jabhadda TPLF ay horumaro ballaaran ka sameeyeen jiidda hore ee dagaalka Goobo magaalada la yiraahdo, ayayna markaasi soo dardareen dhowr difaac oo 6 bilood ee xabajoojinta markaasi u xirnaa ciidamada Abiy Ahmed. Tigreega ayaa wax ka yar 15 kiiloomitir u jirsaday magaalada istiraatiijiga ah ee la yiraahdo Goobo oo saldhigyo waaweyn markaasi ay ku lahaayeen ciidamada federaaliga xabashida iyo maleeshiyaadka ismaamulka Amxaarada ee Fano loo yaqaano. in dagaalku markaasi soo gaaro ama ku soo dhawaado degmada ayaa waxa ay niyadjab markaasi ku noqon doontaa ciidamada dowladda Itoobiya oo magaaladan bilowgii sanadkan ka qabsaday fallaagada TPLF.